الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله شرع يسوي مادين مسؤولين تا نقولها برلمان كدولة جوالات كجبلان يقولها وزيرات دولة جوالات كجبلان كسو جيدا قبل كجيدو أيها كدعي مقالة كسمايو أنت أود حيث لبي تمانك بيشة يسد حي تمانك بيشة فبراير لبدي كوني لبي لباتنك شركة سو دارنا ujeedo soo bandhigid caqabadaha ku xeeran goobta caqabadaha ku xeeran deegaan doorashada labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo tala soo jeedin shirkaas waxa shir gudoominayay madaxweyne ku xigeenka koowaad Maxamuud Siid Aadan shirkaas oo laga soo saaray war murtiyeed iyo tala soo jeedin ku socota madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland golaha dastuuriga dawlad goboleedka Jubbaland golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya Muqdisho daneeyaasha doorashooyinka beesha caalamka shirkaas oo ku saabsanaa suurtagalnimada doorashada ka dhacda deegaan doorashada labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland Garbaharey ayaa wuxuu shirku walaac ka muujinayay xaaladaha ka jira deegaan doorashada labaad ee Garbaharey ayadoo maanka lagu hayo habraaca isdaba joogga ah ee la isku afgartay kuna saabsanaa qabashada iyo meelmarinta doorasho ku dhacda waqtigii la qorsheeyay ayaa shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada caqabadaha dood dheer iyo falanqeyn kadib shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyay deegaan doorashada labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland ay ka degadisan tahay 10 goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed Garbaharey waa deegaan doorashada kaliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan 2 Garbaharey waa deegaan doorashada kaliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyay in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna gudoomiyihii degmada Garbaharey ilaa hadda uu banaan joog yahay arintaas oo caqabad ku ah mas'uuliyiinta labada gole ee dawlad goboleedka Jubbaland xildhibaanada federaalka siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka soo jeeda deegaan doorashada labaad ee ka aragtiga duwan villa Soomaaliya fulinta amarkaas lidka ku ah qarannimada Soomaaliya waxa uu xirsaaran horjoogayaasha hay'adda NISA ee ku kala sugan gobolka Gedo iyo Muqdisho qodobka 3 dhowaan ayay ahayd markii horjoogayaasha NISA ay ku soo daadgureeyeen goobta deegaan doorashada labaad ciidamo lagu magacaabo Duufaan halkaasoo ay fariisimo ka dhigteen garoonka diyaaradaha magaalada Garbaharey si ay ugu carqaladeeyaan habse u socodka doorashada isla markaasna isku hortaag ku sameeyaan madaxda dawlad goboleedka Jubbaland iyo musharaxiinta kale ee ka aragti duwan qodobka 4 horjoogayaasha NISA ee gobolka Gedo waxay marar badan shaaciyeen isla markaasna ka digeen in mas'uuliyiinta Jubbaland aysan iman karin kana howlgali karin goobta doorashada deegaanka labaad ee Garbaharey lambar 5 NISA waxay deegaan doorashada labaad ka abuureen xaalad ku dhisan cabsigelin cagajugleyn handadaad iyo hubitin la'aan ayaga oo si joogto ah u beegsanaya odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta saxaafadda iyo
saraakiisha ciidanka ka aragtida duwan ee ku sugan goobta deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobka 6 NISA waxay abuureen siina huriyeen xaaladda amni darro oo horseedi karta gacan ka hadal hubaysan oo dhex mara beelaha wadadega kuraasta matalaadda dhexdooda kadib markii ay isku abaabuleen isna hubeeyeen sidaa 8 beelood oo ku sugan goobta deegaan doorashada labaad ee Garbaharey. Qodobka 7 NISA waxay bishii November 2011 hor istaag ku sameeyeen waftiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo safar shaqo loogu gorxaalayay in maamul loogu dhiso magaalada Garbaharey si doorasho loogu qabto. iyaga oo qaaday tallaabooyinkaas dhowrka ah sida diyaaradaha oo digniin la siiyey, abaabul mudaaharaad iyo heegan la geliyey ciidamada duufaan oo si khaas ah ugu amar qaata horjoogayaasha NISA. tala soo jeedin marka la eego baaxadda iyo mugga caqabadaha kor ku xusan waxaa muuqata in xasilintooda u baahan tahay waqti dheeraad ah oo ka badan kan hadda la haysto. haddaba iyada oo la tixgelinayo caqabadaha xilligan ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo baahida loo qabo doorashada dalka oo waqtigeeda ku dhacda, ayaa shirku wuxuu soo jeedinayaa in laga fikiro xal kale oo suurtagelinaya qabsoomidda doorashada 16 kursi ee loo qorsheeyey deegaan doorashada labaad ee Garbaharey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.